اوكي بسم الله الرحمن الرحيم waxa inoo socday cashiradeenii xisaabta ee form 4 ka ay inoo socday halkii baynu ka sii wadanaynaa waxa inoo socday chapterkeeni statistics ay inoo socday chapterkeeni statistics waxaynu ka soo qaadanay afar lesson ma soo qaadanay afar lesson sharayto hore waxaynu dhiganay cashirka ka horeeyay waxaynu dhiganay wixii loo yaqaanay dispersion ka ayaynu dhiganay dispersion of statistics baynu dhiganay oo inu ka soo qaadanay range cashirkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa qodobkiisa labaad dispersion ka ayaynu ku qaadan doonaa waayahay oo noqon doona wax loo yaqaan quartiles rubucyo quartiles rubucyada wax loo yaqaan ayaan ku qaadan doonaa lesson 5 statistics chapter 5 wax ka wada lesson 5 quartiles wax loo yaqaan quartiles wax loo yaqaan rubucyo xogaheena waxa loo qaybiyaa 4 different quarters afar rubuc oo kala duwan baa loo qaybiyaa quartileska xogta qaababka rubucyada xogta loogu qaybiyo iyo mid kasta qaacidiisa lagu helo iyo sida uu yahay baynu arki doonaa quartilesku divide the cumulative frequency waxay u qaybiyaan xogta dhitaysan into quarters ba u qaybiyaan quarters rubucyo ayay u qaybiyaan maxaynu ka bilaabaynaa lower quartile rubuc hoose haddaad xogta soo qaadato we have this one 4 6 8 10 12 14 waayahay 18 20 22 24 if we have this kind waxaanu u qaybi karnaa rubucyo kala duwan baynu u qaybi doonaa waxaad haystaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baa haystaa afar meelood oo min saddexa loo qaybi karaa 1 2 3 1 2 3 4 lower quartile-ku is the mark obtained waa qiimaha lagu helo by 1 divided by 4 along the way list of data xogtaada afar meelood marka loo qaybiyo meel ahaan 1 2 3 4 afar meel afar meelood marka loo qaybiyo meesha u hooseysa qiimihiisa u sareeya buu sheegaa 1/4 it will be this one lower quartile laakiin waxa xasuusnaataa inuu yahay afar meelood marka loo qaybiyo meel ahaan uu yahay lower quartile the median oo loo soo gaarto the median range qiimaha dhexfurka ama dhextaarka yes ama dhexaadka xogta is the middle value waa qiimaha dhexe ee lagu helo by 1/2 of the way along the list of values of data xogtaada laba meelood ahaan marka loo qaybiyo labada meelood ee hooseysa meesha u sareysa 1/4 it will be 12 12 ka noqonaysa 1/2 laba meelood marka xogta loo qaybiyo tii hore maxay ahayd afar meelood marka loo qaybiyo meesha u hooseysa laba meelood marka loo qaybiyo laba meelood marka loo qaybiyo meesha hoose qaybta hoose meeshiisa u sareysa upper quartile range QU ama Q3 is the mark obtained waa qiimaha lagu helo by 3 divided by 4 along the way of the list of the values of data numberka xogta qiimaheena xogta afar meelood ahaan marka loo qaybiyo saddexda meelood ee u hooseysa numberkiisa u sareysa u sheegaa saddexda u hooseysa numberkiisa u sareeya ayuu sheegaa waxaad haysataa interquartile range farqiga u dhaxeeya rubica sare iyo rubica hoose is the difference between the upper quartile waa farqiga u dhaxeeya rubica sare and the lower quartile iyo rubica hoose farqiga u dhaxeeya maxaad haysataa 18 buu ahaa rubica sare meeshiisa u sareysay oo laga jaray rubicii u hooseeyay meeshiisii u sareysay this is 12 where the difference between farqiga u dhaxeeya upper quartile-ka iyo lower quartile-ka baa leeyahay quartile deviation or semi interquartile range waxa loo yaqaan waxay tahay durigsanaanta leexsanaanta rubica baa leeyahay quartile deviation-ka
أما سيمي انتركوارتيل رينج أما ربع أما حاف أما بركة ربع بالله هذا وحنا لقوا هلا قيمه كاجا صبحي انتركوارتيل رينج في هراء أو لبلو قيمي لبي يطبنكي أو لبلو سي قيمي دي سي 6 واي مدول بمشي سإنه قتلنا فورمولا الله وهلا هي مدول بس ده وياي واي وحفايستا أنكو عليو مدوا أفر ميلود مركا حقت الله قيبيو ماش أوه سيسن نمبرك أو سرية لبا ميلو أفر ميلود مركا حقت الله قيبيو لبا ميلود هو سن بركيس أو سرية صد أفر ميلود مركا حقت الله قيبيو صد إحدى ميلود أوه سيسن نمبركيس أو سرية انتركوارتيل رينجيغنا فرقiga u dhaxeeya upper quartile lower quartile semi interquartile rangiguna waa interquartile rangiga oo laba loo sii qaybiyo way bal hadda aynu aragna arday mid walba qaacidadiisa lagu helayo way waxaad haysataa waxa loo yaqaano lower quartile QL or Q1 waxa lagu helaa 1 divided by 4 ns or 1 divided by 4 امبراس 20 والمحي تاي فرسك افر ميلود marka numberka xogta loo qaybiyo meel ahaan uu noqonayaa waliba xogtaada marka loo qoro siday u kala weyn tahay ascending order marka loo qoro siday u kala weyn tahay marka loo qoro afar meelood marka xogtaada loo qaybiyo afar meelood marka xogtaada loo qaybiyo meel ahaan n size ku xogtaadu markuu aad u balaaran yahay gaar ahaan markuu konton number iyo wax ka sareeyay yahay waxa la isticmaalaa in kaliya buugaagta qaar kood waxaad ku arkaysaa 30 number iyo wax ka sareeyay haduu yahay baad ku arkaysaa way waxa la isticmaalaa in kaliya haduu size ku xogtaadu aad u kooban yahayna m+1 numberka xogtaada oo hal lagu daray oo afar loo qaybiyay baad ku helaysaa positionkiisii baad helaysaa markaad positionkiisii hesho qiimihiisiina xogtaadii baad dib ugu laabanaysaa oo ka soo dhex saaraysaa xogtaadu waa inay ku habaysan tahay marka koobaad markaad habayso positionka uu ku jiro lower quartile-kaagu ayay ku siinaysaa formuladani way maxaad haysataa median wax loo yaqaano medianka wax loo yaqaano or Q2 1/2 n or 1/2 m+1 th iyada sidoo kale war waxay ii sheegaysaa xogtaada waxay ka timiday 2/4 laba afar meelood marka loo qaybiyo labada meelood ee hoose numberkiisa u sarre ayuu sheegay position median buu siinaya positionka ku jiro sidii uun iyadna n size ku xogtu markuu aad u balaaran yahay m+1 size ku xogtu markuu aad u kooban yahay baa +1 kala ku darsadaa way maxaad yeelaysaa +1ka halka laga keenayo I will tell sida loogu darayo +1ka waa sheegi doonaa way waxaad haysataa QU or Q3 upper quartile wax loo yaqaano waxa lagu helay ee fiirso 3 divided by 4 3 divided by 4 n is or 3 divided by 4 m+1 th saddex meelood afar meelood marka xogtaada loo qaybiyo saddexda meelood ee hoose numberkiisa u sareeya buu isla ii sheegaya numberkiisa u sareeya way sidii uriyadna size-ka xogtaadu markuu kooban yahay waxa la isticmaalaa m+1 size-ka xogtaadu markuu badan yahayna waxa la isticmaalaa n kaliya maxaa lagu helaa IQR interquartile range farqiga u dhaxeeya upper quartile oo laga jiray lower quartile QU minus QL ka taxadir position kooga ha kala jirin value googaad kala jaraysaa formulooyinkani waxay ku siiyaan positionada ay ku jiraan upper quartile iyo lower quartile iyo interquartile iyo median ay ku jiraan way maxaa QD or semi interquartile range wax loo yaqaan QD quartile deviation or semi IQR waxa lagu helaa QU oo laga jiray QL oo loo qaybiyay laba waa kan oo laba loo qaybiyay formulooyinkaasi positionskii ku siinayaan saddexda hore waa
waxa weeye lower quartile-ka upper quartile-ka iyo median-ka position-iskoogi baad helaysaa markaad position-kooga hesho xogtaadii baad kula laabanaysaa position-ka halkan aad ka heshay iyadoo ku habaysnayd way m plus 1 wuxuu ina siinayaa xogtaa markaad haysatay 2 iyo 4 iyo 6 sidaa haddaanu haysay firseeg 2 iyo 4 iyo 6 8 way 10 laba iyo toban 4 iyo toban 6 iyo toban 8 iyo toban 20 kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban 20 iyo laba xogtaasaan haystaa waa 11 number markaan u qaybiyo saddex rub markaan u qaybiyo maxaa iga dhimanaanaya rubica u sareeya hal number baa kaa dhiman balaaswanka lagu darayaa wuxuu dhammaystirayaa xogtaada bari fiirsheeg saddex number laba number balaaswanku correction baa la yidhaha saxe wuxuu ii saxayaa xogtayda oo balaaswanka aad ku dartay wuxuu dhammaystirayaa xogtaada markasta si degan ila dhegeyso halkan si degan ila dhegeyso markaad soo saaranayso lower quartile iyo upper quartile iyo median-ka raac waxan if you give a small list of numerical value haddii list tirooyin nambaro kooban lagu siiyo you can find the median and quartiles dhexfurka iyo rubucyada waxaad ku helaysaa by counting adoo tirinaya yes here is the steps waa kuwa talaabooyinkaad raacaysaa arrange the data arrange yes the value in order size u habee xogtaada habka hoorsanaanta xajmiga maxaa laga wadaa habka hoorsanaanta xajmiga siday u kala weyn tahay xogtaada u habee adoo ka bilaabaya midka ugu yar ilaa iyo midka ugu weyn increasing order of size habka hoorsanaanta xajmiga from smallest to the largest ka ugu yar adoo ka bilaabaya ilaa ka ugu weyn haddii kalase xogtaadu way kaa qaldamaysaa inaad soo saarto ood shaqayso way kaa qaldamaysaa waxa aad soo saarto dhan positionku kuma saxmayo value-guna midna kuma saxmayo maxay kala samaysaa count numbers tiri numberadaada way and call this yes n uguna magacdar numberkii n way intii number ay haysatay add 1 to get n plus 1 hal ku darso and then use the given formula ka bacdina qaacidooyinkii lagu siidiso goorma hal ku darsanaysaa size-ku xogtaadu markuu kooban yahay baad hal ku darsanaysaa waayahay halkani fiirso example-ka koobaad fiirso si degan ii dhageyso example-ka koobaad maxaa la yeelayaa example-keena koobaad aad ii dhageyso way quartiles are very simple lesson way ashir aad u fudud way ashirkeenan waxaad haysataa inaad soo saarto waxa lagaaga baahan yahay inaad soo saarto lower quartile oo lagu helo afar meelood xogta marka loo qaybiyo meesha u hooseysa median oo lagu helo afar meelood marka xogta loo qaybiyo labada meelood ee u hooseeya upper quartile waxa lagu helaa yes afar meelood marka xogta loo qaybiyo saddexda meelood ee u hooseeya kiisa u tiri position numbers bayna ku soo saaraysaa waxa loo yaqaano qaacidooyin kale ay ku soo saarayaan example-ka ay fiirso waxaad haysataa set of numbers numberantaas istaa 26 way 19 way 27 yes 21 sideed iyo toban way 27 way 24 waxaa intaas haystaa we have that one at all shaygaas haysataa maxaa laga rabaa su'aasheeda la weydiiyay maxay tahay what about the questions kow maxaa lagu su'aalay waxaad soo saartaa range-ga soo saar find the range soo saar range-ga soo saar laba maxaa la su'aalay the lower quartile range baa la su'aalay lower quartile-ka la su'aalay saddex maxaa lagu su'aalay median-kii baa lagu su'aalay afar maxaa lagu su'aalay upper quartile range of this data upper quartile-kii rubciisa ee xogtan baa lagu su'aalay the interquartile range of data farqiga u dhaxeeya upper quartile lower quartile-kii
the semi-interquartile range or quartile deviation bani weydii bal hadda sida aanu shaqeeyo fiirso waxaad yeelaysaa solution-kayga ay fiirso saan u shaqeeyo aad si degan ila dhegayso si taxadar badan la ila soco si aad taxadar badan la ila soco ugu horreyn maxaad samaynaysaa arrange the date habee xogtaada arrange the date habee xogtaada arrange yes arrange the date yes xogtaada habee in rank order yes waxa loo yaqaan hoorsanaanta xogta waxa loo yaqaan rank order siday u kala weyntahay xogtaada yaa ugu yarna branteena 18 ba ugu yar 18 ba ugu yar 18 firs yaa xigi kara 18 19 ku hal mar buu ku jiraa 19 ku hal mar buu ku jiraa yaa xigi kara ii sheeg 20 kuma jiro 21 baa ku xiga imisa jeer 1 2 3 mar buu ku jiraa 21 saddex mar buu ku jiraa yaa xigi kara 22 kow way hal mar buu ku jiraa 22 yaa xigi kara 23 kow hal mar buu ku jiraa 23 isla sidoo kale yaa xigi kara 24 kow way sidoo kale hal mar buu ku jiraa yaa xigi kara 25 kuma jira 25 26 baa xigi kara hal mar buu ku jiraa 26 hal mar buu ku jiraa way maxaa ii xiga ii firseeg 26 27 way 27 kow laba jeer buu ku jiraa 27 number ka weyn 27 kuma jiro si aad u garato inaad saxan tahay oo xogtaadii hal score hal dhibicna inaanad ka tagin tirsa xagga sare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 halkana waa inay 11 noqotaa 11 number waa inay ku noqotaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waa dhanta maxaa ka jawaaba su'aalaheena warartay walowba adigu oona su'aalahaagii ka jawaabin 12 number rubic baad sii xiri kartaa war hadda eeg 12 12 number baad haystaa hal ku darso xogtaadu maadaama 12 afar qaybi meeshii 3 bay noqon 3 meesha u dambaysa balaas 1ka correction-ka ku sameynaya oo halka aad ku daraysaa saxaya aniga oona shaqayn ayaa sii garan doona inuu lower quartile-kaygu soo baxayo rubica hoose numberkiisa u sareeya inuu ka noqon doono bal hada qaacidooyinkayga aan isticmaalay fiirso halka ay fiirso maxaan soo saaray markaad range maxaa lagu helaa upper quartile-ka oo laga jaray lower quartile-ka upper quartile-ka oo laga jaray lower quartile-ka maxay tahay upper quartile-ka waxa ka wada sooray numberka u weyn oo laga jaray numberka u yar 27 laga jaray 18 27 laga jaray 18 kala jar 27 iyo 18 sagaal laba maxaa haystaa lower quartile war maxaa la weydiiyay lower quartile-kaygu wuxuu ila mid ahaa 1 divided by 4 m plus 1 t maxaan m plus 1 u idhi size-ku xogtu aad u kooban yahay m plus 1 position-kii baan helay halkan aan kula leeban anoona sii shaqayn baan korkaaga sii sheegi karaa 21 inuu soo bixi doono rubica hoose kiisa u sareeya oo reedi baan sii kala qiimi 1 divided by 4 koob iyo 10 oo nt plus 1 th this is 1 divided by 4 laba iyo 10 th this is numberka saddexaad positionka saddexaad buu ku jiraa mediankaygu macna iyo lower quartile ku jiraa xagga kula noqo 1 2 3 waa kaas ay fiirso 21 this is position and this is value taxadir badan muu jaalkaas si maxaa la weydiiyey median baa la weydiiyey maxaa lagu helaa yes q2 or median maxaa lagu helaa 1 divided by 2 m plus 1 th oo ay noqonayso 1 divided by 2 koob iyo 10 plus th this is 1 divided by 2 laba iyo 10
th. This is 6 position ka lixaad anoona sii sheegin labada rubic ee hoose midkiisa u sareeya waa kan ii fiirso ii tiri xaqana 1 2 3 4 5 6 wakaas ii fiirso 22 this is position ka uu ku jiro barta uu ku jiro and this is value xogta ii voice anoona qaacidooyinkii isticmaalin baan hore u sii qaybsaday rubucyadayda oo sheekata d maxal ii weydii QU or Q3 upper quartile 3 divided by 4 m plus 1 th. This is 3 divided by 4 way koob iyo 10 plus 1 th. This is maxay ila matay fiirsay what I can say this is 3 divided by 4 laba iyo 10 th. labada markaan isku dhufto waa 36 haddaan 36 u qaybiyo 4 waa 9 boosiisha ka sagaalaad buu ku jira horaan u sii karaa saddexda rubic ee hoose midka u sareeya buu ahaa waa kan 1 2 3 waa kana ii fiirso haddaad tirsato sagaalkii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 ii fiirsay very simple maxaa la iga rabaa b maxaa la iga rabaa ida interquartile range farqiga u dhaxeeya upper quartile iyo lower quartile I QR maxay ilamitay QU oo laga jiray QL waxa kaaga digayaa qiimayaasha la kala jaraya net positions ma aha positionka waa kana upper quartile-kaygii 26 ha qaada 9 positionka 26 value-ga oo laga jiray lower quartile-kaygii oo maxay 21 this is 5 shambu iya what about f interquartile range baa soo saaray semi interquartile or quartile deviation maxay ila mitay wixii kaaga soo baxay interquartile range oo laba loo qaybiyay 5 loo qaybiyay 2 this is 2.5 this is very simple aad u fududahay way wayna saasoo kale uga shaqeyn kartaa jawaabtiisiiba halka inoogu loo qoray wayna saqaadka uga shaqeyn kartaa example keena labaad u fiirso the last example keena labaad buu noqon doona waxaad haysataa xogtaydani fiirso iyadna we have this data xogtan baad haysataa waxay tahay ii fiirsay xogtaydani okay waxaad haysataa we have this data at all xogtaas aad haystaa 3 4 baan haystaa ii fiirsay way 7 3 iyo 4 iyo 7 3 4 7 3 5 2 3 5 2 way 3 5 2 6 iyo 10 6 iyo 10 we have this one maxaa la iga rabaa markooda range baa la iga rabaa ka hor intaana shaqadii bilaabin solution-kayga ii dhageyso solution-kayga siday u kala weyn tahay laba u yar labo way maxaa ii xiga 3 iyo 3 baa ii xiga ii fiirso 3 iyo 3 laba jeer bay 3 ku jirtaa 4 baa ii xigta 5 baa ii xigta 6 baa ii xigta 7 baa ii xigta 10 baa ii xiga 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 waa ii dhantahay maxaan ku darsanayaa 8daydii hal baan ku darsanayaa 8daydii range baa la iga rabaa markooda range ayaa la iga rabaa maxaan yeeli karaa kow range-gu muxuu ila mid yahay farqiga u dhaxeeya ka u weyn oo laga jaray ka u yaro waa 8 b ii fiirso maxaa lagu weydiiyey b-da lower quartile baa la weydiiyey lower quartile q l maxaa lagu helaa 1 divided by 4 m plus 1 1 divided by 4 8 plus 1 1 divided by 4 9 haddaad sagaalaad 4 u qaybso 2.25 bay noqonaysaa 2.25 this is 2.25 2.25 be careful here si degani dhegayso laba midkood shaqee position-kayga inaad soo duubto ood rounding ku samayso position-kaaga iyo in aad position-kaasi labada number u dhaxeeya sheegto 2.25 wuxuu u dhaxeeyaa position-ka labaad iyo position-ka saddexaad halka ku noqo this is laba waa kan position-ka labaad position-ka saddexaadna waa kan position-ka labaad numberka ku jira iyo position-ka saddexaad numberka ku jira oo la isku daray oo laba loo qaybiyey what I can say 3 plus 3 divided by 2
lix laba u qaybi this is 3 sidaasaad yeeli kartaa haddii kale maxaad yeeli kartaa soo duub waa labo boosiisha ka labaad kow laba waa isla mid labada processkaad raacda tirso waxaan kugula talinayaa markuu boosiishankaagu soo baxo bointi inaad soo duubto keliya boosiishankaaga ama se aad inta number u dhexeeyo sheegto c ii fiirso waxaad haysataa halkaa ii fiirseeg median maxaa lagu helaa q2 3 waxaan I will say 1 divided by 2 m plus 1 1 divided by 2 sideed plus 1 this is 1 divided by 2 9 4.5 yuu u dhexeeyaa boosiishanka afraad iyo shanaad boosiishanka afraad iyo ka shanaad haddaad soo duubtana waa 6 waa 5 ka shanaad 1 2 3 4 5 buu noqon karaa haddii kala sameeyaa 1 2 3 kii afraad waa kan kii shanaadna waa kan afar lagu daray 5 oo laba loo qaybiyay 9 5 laba u qaybi 4.5 xaqan baa soo duubi kara sidoo kale this is su'aashii noogu daba jawaabtii noogu dambaysa fiirso b waxaad haysataa upper quartile kayga q3 waxa ku helayaa 3 divided by 4 m plus 1 th oo 3 divided by 4 sideed plus 1 this is waa 3 divided by 4 sagaal 27 loo qaybiyay afar bay ii noqonaysaa 27 loo qaybiyay afar 27 loo qaybiyay afar 6 baan siinaya fiirso 24 saddex baa ii soo haray fiirseeg point halka ii geli 0.75 6.75 6.75 this is 6.75 maxaan yeeli karaa inaan soo duubo oo numberka toddobaad iraahdo iyo inaan labada boosiishankaas labada number u dhaxeeyo sheego ka lixaad iyo ka toddobaad 1 2 3 4 5 6 ka lixaad waa ka toddobaadna waa ka 6 lagu daray 7 oo laba loo qaybiyay 13 laba loo qaybiyay this is 6.5 maxay ii tahay I Q R interquartile range maxaa lagu helaa upper quartile oo laga jaray lower quartile 6.5 oo laga jaray lower quartile kaygana muxuu ii soo baxay 3 this is wuxuu ila mid yahay 3.5 buu ila mid yahay 3.5 f maxay ila mid tahay quartile deviation upper 3.5 divided by 2 1.75 this is very simple xasuusnow qaacidooyinka lagu helayo inuu mid yahay rubuca hoos afar meelood marka loo qaybiyo rubuca u hooseeya kiisa u sareysa labada rubuc ee hoose midkiisa u sareysa saddexda rubuc ee hoose midkiisa u sareeyay qaacidooyinku inay boosiisha ku siinayaan way exercise ka ka shaqeynaysaa maxaa laga rabaa waxa laga rabaa range-ga lower quartile-ka median-ka upper quartile-ka interquartile range iyo quartile semi interquartile deviation-ka waa su'aasha koobaad qaabkaas iyadoo sameynaysaa su'aasha labaad waa halka su'aal oo kaliya inaad sameyn karto upper quartile lower quartile median interquartile range quartile deviation-ka aad baad u mahadsantihiin guul baan idin rajeynayaa